علي بن أبي طالب إنه يمدو كيري صاحب العيال بانهي معيشتي بايقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسحه لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قف كاد أوين مركز لا سعته آيات هر سعتها بوكيدي هذا هر مرتاع مركز مي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا باين الله بدأ والد الله يدم بدأ فأنا دو ويدين مركز ها مركز برتا أرزاقه كاحد واتاس لبدا والد بعده كوب درب أرزاقه ويكون فرمية ما لها إنكم يقول أحمد كيا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام أيام بالرزق كده حركيين والد كدعاء يسود عينين بالرزق كده حركيين استغفرت أي بدن أيام بالرزق كده حركيين صلاة الضحى أي تكن أيام بالرزق كده حركيين صلاة الضحى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام واحد موديس صلاة جمع إلا تكن أي مسجد زحمة يعيرك كده عيا دينتن إلهي نوم السنين كليا إن آخر ما فعلت نقبل أبنتو بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان يآخران كدرنا كل بانو marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaan nضيعine adduunyada diinha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallahi hada aakhiradu in la weynaato dhaqankeena toosi oo rizqeena xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laana mujtamac waxa noqonaya mujtamac aakhira ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nabigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyay dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adiga le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan aniga le isii weeyaan tan waxa ku dagaalamayno dhulkan aniga le gurigan aniga lahaa meheradan aniga lahaa waxaan aniga lahaa baa isku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iskale adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adiga iskale iga qaado waxaan maliya anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliya isaga ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa قضاء الزمن كان لقى بين أورن لهين حولها دولة ده لسه كنا إذا غرب أسكت في عنوي جيران لكن كود واحد أسكت الدولة ده وش غير موقتها حولها دولة ده أسكت كنا الله كم حينكونا مورن وحويري هذا محل هاي أبد ويل هذا يقولنا قبل لا بد أسكت جوريا لا بد أنا حولها صيب ويلي الفرس إصلاح هو عجيب هل كهذا إصلاح هو عجيب هل كهذا حماة لكن ده يسوق قصة كله صدقني بالنبي يسرع عليه السلام siday ula socdeen ayay yimaadeen meel banaanka uu dahab ku yaalo diamondku markaasuu nabi ciise ku yiri waxaan waa diamond waa dahab waa jawharad markaasay yiraahdeen noo qaad markaasuu nabi ilaahay soo diray iyo adduunyo meel ma wada marta buu ka yiri markaasay daana ka qaadanayna de hadaad qaadataan raaci meesana waad iga hadheen ogaada buu yiri diin iyo adduunyo isma raacda buu ka yiri waa nabi zaahid waa nabi ciise alayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa nabigii ayaan darada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhawaadeen bay yiraahdeen haddaan maalin gal wala naga dhici habeen ku beegno laakiin waa gaajoonayna way tashadeen waxay yiraahdeen laba dahabkaas si ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankii ba dhiiga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kale ku yidhi dahabkan labadeena buu nagu fiican yahay ninka markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin
adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeenu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisa ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga unbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي عليه الصلاة والسلام ورياض أبو نبي محمد بن ليه جرك بن آدم وصلت با كجرتا هدي هاجاكتو جركو دم با هاجاجي هدي باناتنا جركو دم با بانان وحمان تاسنا وقلبك أبو رسولك يدي قلبك أنا وح كلمة هاجاجيان قلبك لا عجمة هاجاجسو قلبك وح كلية هاجاجيا وأمرك يدك إلهي معرفة ديسو معرفة الله عثمان بن عفان الله رالي كان نقضيه الضوميسي الضوم كميد ويا مالين وعود العقد انقاد ابو ذر الغفاري وجي هدو العقد ابو ذر هدو العقد كاقاتنا حربات هاي بكير حر وانكو حري ابو ذر مركا مقالة مدينة دبدد ودقنا ريب دم الليلة وعثمان بن عفان باكل هلكا اوغو رضيقو waayo waa nin zaahid buu ahaa qarnigii nabigaad moodaa inuu joogay isagu dadkan taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyada la yimaadeen oo dhan uu nafinaya isagu dharkii nabi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa wali cariishkii nabi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii ahdigii nabiga la cunayna wali uu cunay isagu abu dar al-ghifari radiyallahu anhu marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo sidaa ma hinde من يبغى العقد ذي واسك جعلها أو يمدي أو سلامي وعند أمير كي مؤمنين تاع عثمان بن سلام كاجا سدا وان كقاضي بل ورن نسقى كورن دار الخلافة كورن مسجد النبي كورن مسلمين تحلقوا كورن مركوا كورن أيوري العقد أنا ويسو ديبا وحيري أبو در أوجي العقد أس مركز المحان كدقة عري ده هو كلمة استأدوية markaasuu yiri u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiina joogtay ciddaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa yahay cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yiri haduu Abu Dar lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxe xoreeyo lacagta niga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxa doonta akhri markaasuu loriga qaado oo ina xariiso maxaa kugu naxariista hadaa lacagta iga qaadato waan xoroway buu ka yiri wuxuu ku yiri Abu Dar dhageyso hadalku ku yiri eeg hadaa adigu qaadashada lacagta aan ka qaaday aad ku xoroobayso ana adoon baan ku noqonayaa buu yiri marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anu adoon xor aan ahay buu xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo Cusmaan u keenay wuxuu yiri waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifari